shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa eedeymo kala duwan dusha uga tuuray shirkadda Haas Petroleum iyagoona ku tilmaamay inaysan wax horumar ah ka fulin guud ahaan gobolka Sool. shacabkan ayaa madaxda shirkadda Haas ku dhaliilay inay ka ganacsadaan gobolka balse aysan jirin waxay dib ugu celiyaan waxayna intaasi ku dareen in shirkadda Haas ku fashilantay ballanqaadyo badan ay gobolka u sameysay ayna ka xuseen boodhanka ay 2015 ka dhayax dhigeen magaalada Laascaanood iyo sidoo kale inaysan gabi ahaanba ka qayb qaadan abaaraha baan ee ka jira guud ahaan deegaanada gobolka Sool. waa kuwan shacabka oo ka hadlaya arrimahaasi. waxaanu ku suganahay deegaanka Laascaanood xarunta gobolka Sool. waxaa jirta shirkado badan oo ganacsi oo laga leeyahay gobolka Sool, shirkadahaas oo aan ka qayb qaadan horumarka iyo infrastructure gobolka. waxaa jirta shirkad la dhaho Haas Petroleum. shirkadaasi waa shirkadda ugu weyn geeska Afrika, waxayna xarumaheedu ugu weyn ku leedahay magaalada East Africa Kampala, waana haamaha ugu weyn shidaalka. Berberena waxay ku leedahay qayb kamid ah haamaha ku leedahay. shirkadaasi boodhan bay furtay. boodhankii steel wuxuu aweeyay mid aan wali dhameystirnayn oo qorshihiisii aan wali la dhameystirin. waxaa kaloo jirta kama qayb qaadato horumarinta deegaanka, hadday noqoto xagga abaaraha, hadday noqoto xagga caawimooyinka, hadday noqoto xag kasta oo horumarinta arrimaha bulshada, midna kama qayb qaadato. waxaan ka cabbaaraynaa shirkadda Haas oo la leeyahay waxa iskala ganacsato u dhalata gobolka waxa kamaysan qaban. hadda tusaale ahaan xamar oo kale intaasoo xarumood bay ka leedahay, intaasoo mashruuc bay ka fulisay. gobolkan waxay leedahay waan u dhalanay wax mashruuc ay ka fulisay male. marka gobolka dadku dhashay inay iska lahaadaan gobolkooda inay waxba ka qaban, gobolasha inay wax ka qabtaan wax suuragal maaha, mana yeelin mana aqbalin. Haas Petroleum waa shirkaddii ugu weynayd ee laga lahaa mintaqada tan Sool iyo Sanaag iyo Cayn. abaaraha iyo waqtiga adag ee lagu jiro siiba dadka mintaqadani ku jira ee dadkii hayaamay ee miyada lagu tacdareysan yahay inay wax ka qabato. waxaan maanta si toos uga hadlayaa dhaliilaha ay leedahay shirkadda Haas Petroleum. waa shirkadda kaliya ee Laascaanood asal ahaan ka soo jeeda wax la taaban karo oo ay magaalada Laascaanood ku darsatay ilaa hadda ma hayno. waxay ballan qaaday boodhan lagama hayo, waxay ballan qaaday buunto isku xidhaysa durdurka iyo maxay tahay dhinaciisa iyo magaalada lagama hayo. waxay kaloo ballan qaaday inay wax qabad inta ka ballaaran oo agoomaha college u sameyn doonto. intii midna lagama hayo. abaaraha hadda dhacay cid kasta oo hanti haysta waxbay gacan ka geysatay, wax gacan oo ay ka geysatay male. xataa Telesom waxay ka geysatay maanta gacantii u dambeysay shirkadda Telesom ka geysatay. teebaha kaga dhow baa la oran karaa miina iyadoo shirkad magaalada maxay tahay ganacsiga ugu badan maxay tahay ay bay ka heshaa lacagta ugu badan dakhliga ugu badan inuu ka soo galaa. ballan qaadada ay sameysay kama run sheegin. Barco waxay ka dhisatay guri $1 milyan ku kacay. Laascaanood meel ay saliidda ku iibsato bayna ka taagin xataa bilicda magaalada. halkan waxa ka cambaareynayaa shirkadda Haas oo tiri gobolka Sool waxay afar badan baan u qabanayaa ilaa haddana aanu qaban. waxaanu cambaareynaynaa shirkadda Haas, waxaanu anagu taageeraynaa markay gobolkayga wax ka qabato, taageeri mayna inay gobollo kale wax ka qabato. waxaa halka baaq uga diraya ganacsatada oo aad moodo in aanay dhagahoodu marnaba aanay maqlayn dhibaatada inta ay leegtahay ama baahiyaha jira, oo aad moodo in baaqyada laga sii deynayo ama ha noqoto xafiiska gobolka ama ha noqoto masaajidada inaanay wali dareemin ama qalbigooda aanay ku dhicin. dhinaca kale madaxda shirkadda Haas oo aan isku daynay inaan wax ka weydiino eedeymaha loo soo jeediyay ayaa ka gaabsaday inay ka jawaabaan eedeymahaasi. Samiir Saciid Laascaanood.